السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي با داوديال سو dhawaada halkani waa Halacsi TV waxaan doonaa daawadayal inaan halkan idinka soo gudbino barnaamijka aan doonayno inaan markaasi aan maanta ku wareysano Suldaanka guud ee markaasi beeraha Hawar Abal markaasi Suldaan markaasi oo lagu magacaabo markaasi Suldaan Maxamed Suldaan Axmed Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye oo markaasi kamid ah suldaamada beeraha Hawar Abal ayaa maanta waxa uu nagu soo boqday studio-ga koobaad ee telefishinka caalamiga ah ee markaasi Halacsi TV Suldaan markii ugu horeysay ku soo dhawaad TV-ga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نمعان يا هولادنا كلها سيفيبا ودوهي وانا السلاميه waayahay Suldaan aad u mahadsantahay Suldaan waxa ka timi wadankii magaalada Nairobi ayaa markaasi aad halkan ku soo gaadhay bal waxaad nooga warantaa munaasabadii 18 May adigoo markaasi munaasabadaasi ugu horeen aad ka hor dhacayn safarkaagii Nairobi iyo kulankaagii ugu horeeyay cid yar la kulan aad baad mahadsantahay dhimcaan wasaal fiican weeye runtii ujeedada safarka halkan aan u imi anigoo dalkii ka imi muddooyinka laga joogo 10 maalmood waxay ahayd hawl dhaqan oo kamid ah hawlaha dhaqan ee aan u xil saaranahay haddii aan nahay mas'uuliyiinta dhaqanka si wanaagsan bay kala ilaahay alxamdu hawshaasi iigu suuro gashay iigu soo gabagabowday waxaan isragnay dad fara badan oo madaxda dhaqanka qeybaha kala gedisan ee beelaha Soomaalida ah khaasatan madaxda dhaqanka beelaha direed intooda badan waa isragnay martiqaadana waa ay fidiyeen waxa kale oo isragnay madaxda dhaqanka guud ahaan beelaha Irir Soomaaliya inta halkan ku sugan iyagana waa isragnay waxa kale oo isragnay jaaliyadda reer Soomaaliland ee halkan ku sugan iyaguna intooda badan iyagana waa isragnay wayeelka iyo waxgaradka balmaadooyinka dhamaan qaybaha bulshada iyagana waa arkay ummad kale oo Soomaaliyeedna iyagana waa isragnay dadka KNFD ama Kenya gobolkan la yiraahdo ee Soomaalida wax la leh intooda badan iyagana waa isragnay waxaan uga mahadcelinayaa soo dhaweyntii iyo qaablaadii iyo asmada fara badan ee sameeyeen inaan fursadan ka faa'iideysanaya dhammaantood waa u mahadcelinayaa si wanaagsan oo muhiim maysan ayaan xaaladii dalka uga warramay iyaguna warbixino fara badan oo dalka ku saabsan bay siiyeen kainaas uu koobnaa sarkay waayahay Suldaan waad mahadsantahay Suldaan waxaad nooga warbixisay isla markaasina bal dul istaagtaa xaaladda guud ee wadankii maadaama wadankii aad ka timi isla markaasina adigoo markaasi soo koobaya bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee wadankii uu ku sugan yahay xaaladda guud ee dalka ku sugan yahay kulay inkastoo in badan warbaahinta kala socotaan haddana kulay qofka uu ka dambeeyay ama nin weyn oo dhaqan oo meeshii ka yimi kulay wax waa laga weydiinayaa marka dalkii aad runtii wanaagsan yahay roobkiina waa ka da'ay oo gubisi aan bari hore loo heli jirin ee ilaahay raxmadiisa uu u wada gaarsiiyay oo wadanka oo dhan waa barwaaqo haday noqoto bari dowladda bariga oo galbeedka iyo inta dhaxaba iyo guud ahaan gobolada inaga sii sheer reserve area ama Somali state aynu naqaano ma ogaadeen baa ilaahdo dhulka dhan waa barwaaqo way kaliya inta qolaada gobolkaasi Laascaanood magaaladaasi Laascaanood aan gobolka oo dhan qolaadaasi oo quraata wax dhiba oo taagan oo aan ogahay dalka ka imi jirta taasina Soomaaliland maraaxil ka adag oo ka soo baxday taladeedii iyo tacabkeedii iyo tamarteediina way leedahay waana wada hadalay dadaal fara badanna waa ay socdaan marka laga yimaado constitution-ka dalka ama qaanuunka dalka oo cadeynaya bedka iyo bari haday tahay bad haday tahayba xududkeena dowlad cadeynaya inta marka laga yimaado aan dood iyo geli karin oo cid taasi lagala xaajoon karin wixii inta ka soqeeyay ummadda reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliland ee la qalday wada hadal iyo waan baan horna ugu baaqnay marka waa ku baaqaynaa billahi ta'ala waxaan ku rajoonaynaa in arrintaasi ay dhammaan doonto nabad ay soo noqon doonto waayahay waad mahadsantahay Suldaan sidoo kale waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo waxaad ka warantaa maadaama wadanka aad ku sugnay isla markaasina aad kamid ahayd suldaamadii ka qayb qaatay munaasabadda 18 May bal waxaad nooga warantaa munaasabadii 18 May ee sanadkan ee Nairobi bal adigoo markaasi diiradda saaraya sidee bay u dhacday runtii waa su'aal wanaagsan weeye munaasabadda 18 May rabiida odayaashii lagu marti qaaday baan kamid ahaa waxa ka soo qayb galay ummad aad iyo aad u tiro badan ummadda reer Soomaaliland jaaliyadda halkan degan haday Nairobi tahay caasimada iyo haday gobolada dalka tahayba dhammaantood way ka soo qayb galeen ummadii hore ee reer Kenya ahayd iyaguna reer Soomaaliland original ka soo jeeday iyaguna waa ay ka soo qayb galeen waxa kale oo ka soo qayb galay iyaguna ummad aad iyo aad u tiro badan oo Soomaaliyeed oo xorriyadda iyo nidaamka dimuqraadi multi-party systemka Soomaaliland ka hana qaaday iyagoo istaaga runtii aan oran karo farxadda way nala wadaageen oo nagu taageersaneen oo ka soo qayb galeen waxa kale oo iyaguna ka soo qayb galay dawladda Kenya mas'uuliyiin aad iyo aad u tiro badan baarlamaanka hadii ha ahaadaan mas'uuliyiin kale ha ahaadaan
oo runtii qaybaha bulshada oo dhan ka tirsan baa iyaguna farxadaasi igala wadaagay safiirka isfiirka Barwaani iyo Shamaarke oo door mug iyo miisaan la iyaguna ka qaatay xafladaasi ayaan iyagana si aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa markaan soo ururiyo waxay xaflad aad iyo aad runtii u qurux badan u qiimo badan jaaliyadaha reer Soomaaliland ee dalka dibadiisa shanta qaaradood ee dunida ka wada dabaaldegay wax badan ma ka daawaday in badan ma ka daawaday waxaan oran karaa xafladihii ugu quruxda badnayd ee tan aynu Nairobi maanta ku qabanay ee kamid ahayd wax kala ku soo qayb galay xildhibaan reer Soomaaliland saddex xildhibaan oo baarlamaanka iyo saddex xildhibaan oo dowladaha hoose iyaguna nagala soo qayb galeen oo jaamaca isaguna akademiyada ka socday isaguna ka soo qayb galay ummad badan baa runtii ka soo qayb gashay xaflad aad iyo aad runtii u qurux badan oo ahayd farxadaasna ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkiisa inaynu ku gaadhno iyo sanawaadka kale soo socda inaynu u dabaaldegno Somaliland oo xora oo international community-gana member ka noqotay oo African Union kursi ku yeelatay oo Arab League kursi ku yeelatay oo United Nations kursi ku yeelatay oo dal qurux badan intii tamanaa noo dhameystiranto in ilaahay ka baryayaa xaflad qurux badan oo ahayd waayahay Suldaan waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aal ku saabsan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ka Suldaan ahaan door muhiim ah intee ayaa ka qaatay runtii marka dhaqanka hadii aanu nahay dowlad fara badan baanu ka qaadanay aynaba wada weydin wax laga yaabaa in warbaahinta kala socoteen oo markii ugu horeysay dagaalku uu socday waxaan laba week ka badnaay madax dhaqameeda oo xulay oo xukuumadda iyo dhaqanka waa isku raacnay baa loo diray ergey ahaayeen waxay fadhiyeen 15 cisho ilaa 20 cisho aan oran karaa dhinaca kale ee garaadada ayaan arrintaasi ka suura gelin way soo noqdeen Hargeysa ku soo noqdeen haddana inta dadaal uma habeen iyo maalinba aniga kula fadhiyaa waxa dhaqan qaybahooda kala gidsan oo dhan inta habeen iyo maalin baan telefoonno aan ku daba soconaa welina arrintaasi waa ay taagan tahay madax dhaqameed kale oo reer Soomaaliya oo koonfurta ka yimi Soomaaliya ee iyaguna imkaan Hargeysa ka yimi iyaguna ku sugan oo arrinta iyaguna nagala shaqeynayay marka habeen iyo qaraarba isla habeen naas bay madax dhaqanku u taagan tahay imika u taagannahay waan ka shaqeynaa way adigoo markaasi diiradda eegaya isla markaasina maadaama tahay Suudaankii guud ee beeraha Habarwal waxaad soo jeedinaysaa garaadada beesha dhulbaante inkastoo hore ay ugu baaqeen dagaal nabadina ay diideen wallahi waa nasiib darro weeye taas hore oo dhacday waa runta laakiin imika waxaan leeyahay caano daatay dabadood qabay danta ummadda reer Soomaaliland waxay ku jirtaa inaanu dalkan kala go'aynin oo gobol ka mid ah aanu maanta gaar u bixi karin salahan maanta waxaan joognaa Nairobi joognaa waa caasimadda dalka Kenya Mandera ummad Soomaaliyeed baa degan waxay wax la leeyihiin dalkan Kenya suuragal ma aha maanta inay tiraahdo Mandera waxa raacaya Soomaaliya oo xuduud baa jira international oo Afrika oo dhan ku kala socoto marka wixii aan suura galin inaanu ummadda lagu layn laguna lugweynin laguna maaweelin baa wanaagsan waxaan ugu baaqayaa wax aliyaalo wixii qarannimada aan dhaawacayna intaasi ka sokeeyo walaalaheed waxaynu ugu baaqaynaa inay nabadaasi nagala qayb qaataan in danta ummadda reer Soomaaliland ay ku jirto wada hadal iyo isu tanaasub iyo isu aqal celin in miiska hadalka aynu isugu nimaadno inta aan reer Soomaaliland ahayna xuduudaha kala ka soo talaabayna waxaan leeyahay anagu idinmaanaan soo talawnay haddii khilaaf dhexdiina ka jirana dab gaas kuwa naasiyada reer inaanu isu kiijinay inaanu banaanka ka joogno kama dhaxaysan idin kuna faraha kala baxayaan leeyahay garaadadana nabad baan imika ugu baaqayaa horna waa ugu baaqnay goor walbana waa ku baaqaynaa in miiska wada hadalka la isugu yimaado nabad la qaato waayahay fariintaada ugu dambaysa rabtay halkan aad uga dirto shacabka reer Laascaanood yahay wallahi shacabka reer Laascaanood runtii barakac baa ku yimi waxaanay ahayd arrin nasiib darreed lagu wada tiiraanyoodo waxaan leeyahay in nabadaasi oo laga wada shaqeeyo oo dalka la aamino oo Soomaaliland baa dalkan iskale cid maanta ku xadgudbaysaana ma jirto awoodaha dalkuna way qaybsan yihiin oo wad ogtihiin oo munaasibta ugu sareysa dalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka laga tago ninka barnaamijka saddexaad ee dalka leh waa ra'iisul baarlamaanka dalka weeye yani waxa weeye in dalkii la wada leeyahay taasi ka turjumaysa madaxweynahana wax ka maanacaya ma jirto berri ka maalin marka ay qof iyo cod noqoto dadka reer Laascaanood gacantooda ku jirta cid ay dooranayaan iyo cid matalaysa ay u codayn doonaan marka waxaan leeyahay nabadda reer Soomaaliland baa tiin meel kale oo maanta u bixi kartaan ma jirto qaanuun iyo shuruuc caalami ah jirto idina aan ka talaabsan karin oo qof wuxuu jecel yahay suura galeyni marka waxaan leeyahay wada hadal iyo walaalnimo ayuu baan ugu baaqayaa iyo in dalku dib soo laabtaan waayahay aad baan u mahadsantahay Suldaan intii gabagabadii barnaamijkeena maadaama Suldaan tahay bulsho fara badan aad matasho guud ahaan shacbiga Soomaaliland fariinta kooban aad halkan doonayso inaad uga dirto adigoo soo koobay shacbiga Soomaaliland aniga waxaan maleeyahay munaasabada 18 May runtii ku xamaleeynaya aan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr ilaahay dinkiisa
waxaan leeyahay dalka inaga leh inaynu wanaagiisa ka shaqeyno oo qof waliba uu wanaagiisa ka shaqeeyo oo si degan wax la isugu sheego oo la isu dulqaato khilaafaadku meel walba waa ka jira qoys iyo ayaa aabiyo hooyo wada dhaleen oo wada laaba khilaafaadku soo dhex mari karaa ninkii gabeeyey wuxuu yidhi shil weeye inaad kuftaay haddaad kici weyda ceeba marka inaynu khilaafaadkeennaa si degan oo sidii somaliland kusoo caanamaashay aynu ku dhammaysano wanaag iyo wadahadalna aynu mar walba ka wada shaqeyno indhaha dhexdeena iyo khilaafaadka dhexdeena aynu ku eegin inaynu ku eegno cadowga inaga sarreeya ee dalkeena duulimaadka ku ah oo midnimadeena iyo wadajirka iyo walaalnimadeena iyo wixii soo aasheen aan ka wada shaqeyno uma shacabka somaliland ugu baaqaya guud iyo dibadda waayahay aad baad umahadsan tahay kaas waxau ahaa suldaanka guud ee markaasi beelaha habar awal suldaan maxamed suldaan axmed suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye oo markaasi kamid ah suldaamada ugu fican weyle beelaha habar awal oo markaasi nagu soo boqday stuudioga koowaad ee telefishinka caalamiga ee halaxsi t v oo markaasi magaalada nairobi aan waraysiga ka qaadanay suldaanka aad ayaan ugu mahad celinaa waqtigiisa qaaliga suldaan waan ku mahad celinaa marka koowaad marka labaadba aad iyo aad baan ku leenahay soo dhawo waayahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabanayaa barnaamijkii intaan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale waanigeena macaan cabdilaahi qoorgaaba iyo sidoo kale shaqaalaha telefishinka oo ina leh maalin wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinba daawadayaal soo dhawaada halkani waa halacsi t v waxaan doonaa daawadayaal inaan halkan iga soo gudbino barnaamijka aanu doonayno inaan markaasi aanu maanta ku wareysano suldaanka guud ee markaasi beelaha hawar awal markaasi suldaan markaasi oo lagu magacaabo markaasi suldaan maxamed suldaan axmed suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye oo markaasi kamid ah suldaamada beelaha habar awal ayaa maanta waxa uu nagu soo boqday stuudioga koowaad ee telefishinka caalamiga ah ee markaasi halacsi t v suldaan markii ugu horreysay kusoo dhawo t v-ga bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin nimcaan iyo howlwadanada kale halacsi t v-ga waa dhowahay waana islaamaya waayahay suldaan aad baan u mahadsantahay suldaan waxaad ka timi wadankii magaalada nairobi ayaa markaasi aad halkan ku soo gaadhay bal waxaad nooga warantaa munaasabaddii 18 May adigoo markaasi munaasabadaasi ugu horreyn aad ka hor dhacayn safarkaagii nairobi iyo kulankaagii ugu horreeyay cid yaad la kulantay aad iyo aad baad mahadsantahay nimcaan su-aal fiican weeye runtii ujeedada safarka halkan aan u imi anigoo dalkii ka imi muddooyinka laga joogo 10 maalmood waxay ahayd hawl dhaqan oo ka mid ah howlaha dhaqan ee aan u xil saaranahay haddii aan nahay mas-uuliyiinta dhaqanka si wanaagsan bay kala ilahay alxamdu hawshaasi iigu suuro gashay iiguna soo gabagabowday waxaan isaragnay dad fara badan oo madaxda dhaqanka qeybaha kala gedisan ee beelaha soomaalida ah khaasatan madaxda dhaqanka ee beelaha direed intooda badan waa isaragnay martiqaadana waa ii fidiyeen waxaa kaloo isaragnay madaxda dhaqanka ee guud ahaan beelaha irir soomaale inta halkan ku sugan iyagana waa isaragnay waxaa kaloo isaragnay jaaliyadda reer somaliland ee halkan ku sugan iyaguna intooda badan iyagana waanu isaragnay waayeelka iyo waxgaradka culimaaddooyinka dhammaan qaybaha bulshada iyagana waa arkay ummad kale oo soomaaliyeedna iyagana waa isaragnay dadka reer n f d ama kenya gobolkan la yidhaahdo ee soomaalida wax la leh intooda badan iyagana waa isaragnay waxaan uga mahad celinayaa soo dhaweyntii iyo qaabilaadii iyo asmida fara badan ii sameeyeen anoo fursadan ka faa'iidaysanaya dhammaantoodba waa u mahad celinayaa si wanaagsan oo mugiyo mahaysaan leh ayaan maana xaaladii dalka uga warramay iyaguna warbixino fara badan oo dalka ku saabsan bay ii siiyeen marka inahaas ugu koobna salkayga waayahay suldaan waad mahadsan tahay suldaan waxaad nooga warbixisaa isla markaasina bal aad dul istaagtaa xaaladda guud ee wadankii maadaama wadankii aad ka timi isla markaasina adigoo markaasi soo koobaya bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee wadankii uu ku sugan yahay xaaladda guud ee dalka ku sugan yahay kolley inkastoo in badan dee warbaahinta kala socotaan haddana dee kolley qofka uu ka dambeeyey ama nin weyn oo dee dhaqan oo meeshii ka yimi kolley waxbaa laga weydiinayaa markaa dalkii aad iyo aad runtii wanaagsan yahay roobkiina waa ka da-ay oo gugii si aan berihii hore loo heli jirin ee ilaahay raxmadiisa uu u wada gaadhsiiyey oo waddankao dhanbe waa barwaaqo hadday noqoto bari gobolada bariga kuwa galbeedka iyo inta dhaxaba iyo guud ahaan gobolada inaga sii sheegay reserve area ama Somali state aynu naqaano ma ogaadeenay baa idhaahdo dhulka dhan waa barwaaqo weeye kaliya taa inta colaada gobolkaasi laascaanood magaaladaasi laascaanood aan gobolka odhan colaadaasi oo quraata wax dhiba oo taagan oo aan ogahay in dalka ka imi jirta taasina Somaliland maraaxil ka adagna way ka soo baxday taladeedii iyo tacabkeedii iyo tamarteediina way leedahay waana wada hadalay dadaalo fara badanna waa ay socdaan marka laga yimaado constitutionka dalka ama qaanuunka dalka oo dee cadeynaya bedka iyo beri haday tahay bad haday tahayba xuduudkeena dhuleed cadeynaya intaa marka laga yimaado aan dood iyo geli karin oo cidna taasi lagala xaajoon karin
wixii intaa ka sokeeyay ummadda reer Somaliland dadka reer Somaliland ee la qalday wadahadal iyo waan baan horna ugu baaqnay markana waa ku baaqaynaa biidhnillaahi tacaalana waxaan ku rajoonaynaa in arrintaasi ay dhammaan doonto oo nabadii ay soo noqon doonto waayahay waad mahadsantahay Suldaan sidoo kale waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo waxaad ka warantaa maadaama wadanka aad ku sugnay isla markaasina aad ka mid ahayd suldaamadii ka qayb qaatay munaasabadda 18 May bal waxaad nooga warantaa munaasabadii 18 May ee sanadkan ee Nairobi bal adigoo markaasi diiradda saaraya sidee bay u dhacday runtii waa su'aal wanaagsan weeye munaasabadda 18 May raggii odayaashii lagu marti qaaday baan ka mid ahaa waxaa kasoo qayb galay ummad aad iyo aad u tiro badan oo ummadda reer Somaliland jaaliyadda halkan degan hadday Nairobi tahay caasimadda iyo hadday gobolada dalka tahayba dhammaantood way kasoo qayb galeen ummadii hore ee reer Kenya ahayd ee iyaguna reer Somaliland originally kasoo jeeday iyaguna waa ay kasoo qayb galeen waxa kale oo kasoo qayb galay iyaguna ummad aad iyo aad u tiro badan oo Soomaaliyeed oo xorriyadda iyo nidaamka dimuqraadi multi-party systemka Somaliland ka hana qaaday iyagoo istaaga runtii aan oran karo farxadda way nala wadaageen oo nagu taageersaneen oo kasoo qayb galeen waxa kale oo iyaguna kasoo qayb galay dawladda Kenya mas'uuliyiin aad iyo aad u tiro badan baarlamaanka hadii ha ahaadaan mas'uuliyiin kale ha ahaadaan oo runtii qaybaha bulshada oo dhan ka tirsan baa iyaguna farxaddaasi nala wadaagay safiirka isfiirka Barwani iyo Shamarke oo door mug iyo miisaan leh iyaguna ka qaatay xafladaasi ayaan iyagana si aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa markaan soo ururiyo waxay xaflad aad iyo aad runtii u qurux badan u qiimo badan jaaliyadaha reer Somaliland ee dalka dibadiisa shanta qaaradood ee dunida ka wada dabaaldegay wax badan ma ka daawaday in badan baan ka daawaday waxaan oran karaa xafladihii ugu quruxda badnayd ee tan aynu Nairobi maanta ku qabanay ee kamid ahayd wax kala soo qayb galay xildhibaano reer Somaliland saddex xildhibaan oo baarlamaanka iyo saddex xildhibaan oo dowladaha hoose iyaguna nagala soo qayb galeen oo jaamaca isaguna akademiyada ka socday isaguna ka soo qayb galay ummad badan baa runtii ka soo qayb gashay xaflad aad iyo aad runtii u qurux badan oo ay ahayd farxaddaasina ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkiisa inaynu ku gaadhno iyo sanawaadka kale soo socda inaynu u dabaaldegno Somaliland oo xora oo international community-gana member ka noqotay oo African Union kursi ku yeelatay oo Arab League kursi ku yeelatay oo United Nations kursi ku yeelatay oo dal qurux badan intii tamanaa noo dhameystiranto in ilaahay ka baryayaa xaflad qurux badan oo ah waayahay Suldaan waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aal ku saabsan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ka Suldaan ahaan door muhiim ah intee ayaa ka qaadatay runtii marka dhaqanka hadii aanu nahay door fara badan baanu ka qaadanay aynaba wada weeyeen wax laga yaabaa in warbaahinta kala socoteen oo markii ugu horeysay dagaalku waa uu socday waxaan laba week ka badnaay madax dhaqameeda oo nuxulay oo xukuumadda iyo dhaqanka waa isku raacnay baa loo diray ergey ahaayeen waxay fadhiyeen 15 cisho ilaa 20 cisho aan oran karaa dhinaca kale ee garaadada ayaan arrintaasi ka suura gelin way soo noqdeen Hargeysa ku soo noqdeen haddana intaa dadaal uma habeen iyo maalinba aniga kula fadhiyaa madaxa dhaqanka qaybahooda kala gedisan oo dhan intaa habeen iyo maalin baanu telefoonno aanu ku daba soconaa welina arrintaasi waa ay taagan tahay madax dhaqameed kale oo reer Soomaaliya oo koonfurta ka yimi Soomaaliya ee iyaguna imkaan Hargeysa ka yimi iyaguna ku sugan oo arrintaa iyaguna nagala shaqeynayay marka habeen iyo dharaarba isla habeen naas bay madaxda dhaqanka u taagan tahay imika waa u taaganahay waana ka shaqeynaa waay adigoo markaasi diiradda eegaya isla markaasina maadaama tahay Suldaankii guud ee beeraha Habarwal waxaad u soo jeedinaysaa garaadada beesha dhulbaante inkastoo hore ay ugu baaqeen dagaal nabadina ay diideen wallahi waa nasiib darro weeye taas hore u dhacday waa runtaa laakiin imika waxaan leeyahay caano daatay dabadooda qabay danta ummadda reer Somaliland waxay ku jirtaa inaanu dalkan kala go'aynin oo gobol ka mid ah aanu maanta gaar u bixi karin salahan maanta waxaan joognaa Nairobi baynu joognaa waa caasimadda dalka Kenya Mandera ummad Soomaaliyeed baa degan waxay wax la leeyihiin dalkan Kenya suuragal ma aha maanta inay tiraahdo Mandera waxa raacaya Soomaaliya oo xuduud baa jira international oo Afrika oo dhan ku kala socoto marka wixii aan suura gelin inaanu ummadda lagu layn laguna lugweynin laguna maaweelin baa wanaagsan waxaan ugu baaqayaa wax aliyaalo wixii qarannimada aan dhaawacayna intaasi ka sokeeyo walaalaheena waxaynu ugu baaqaynaa inay nabadaasi nagala qayb qaataan in danta ummadda reer Somaliland ay ku jirto wada hadal iyo isu tanaasul iyo isu aqal celin in miiska hadalka aynu isugu nimaadno inta aan reer Somaliland ahayna xuduudaha kala ka soo talaabayna waxaan leeyahay anagu idinmaanaan soo talawnay haddii khilaaf dhexdiina ka jirana dab gaas kuwaanaan sii dareen inaanu isu kiijidnay inaanu banaanka ka joogno kamay dhaxaysan idin faraha kala baxayaan leeyahay garaadadana nabad baanu imika ugu baaqayaa horna waa ugu baaqnay goor walbana waa ku baaqaynaa in miiska wada hadalka la isugu yimaado nabad la qaato waayahay fariintaada ugu dambaysa aad rabtay halkan aad uga dirto shacabka reer Laascaanood yahay wallahi shacabka reer Laascaanood
runtii dee barakac baa ku yimi waxaanay ahayd dee arrin nasiib darradeeda laga wada tiiraanyoodo waxaan leeyahay in nabadaasi un laga wada shaqeeyo oo dalka la aamino oo somaliland baa dalkan iskale cid maanta ku xadgudbaysaana ma jirto awoodaha dalkuna waa ay qaybsan yihiin oo waad ogtihiin oo munaasibta dee ugu sarreysa dalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka laga tago ninka barnaamijka saddexaad ee dalkani waa ra'iisul baarlamaanka dalka weeye yani waxa weeye in dalkii la wada leeyahay bay taasi ka turjumaysaa madaxweynahana wax ka maanahaya ma jirto berri ka maalin marka ay qof iyo cod noqoto dadka reer laascaanood gacantoodii ku jirtaan cid ay dooranayaan iyo cidda matalaysa ay u codayn doonaan marka waxaan leeyahay nabadda reer somaliland baa tihiin meel kale oo maanta aa u bixi kartaan ma jirto qaanuun iyo shuruuc caalami ay jirto idina aanay ka tallaabsan karin oo qof wuxuu jecel yahay aanay suuro gelaynin marka waxaan leeyahay wada hadal iyo walaalnimo ayuu baan ugu baaqayaa iyo in dalkooda kusoo laabtaan waayahay aad baan umahadsantahay sultaan intii gabagabadii barnaamijkeena maadaama sultaan aad tahay bulsho fara badanna aada matasho guud ahaan shacbiga somaliland farinta kooban aad halkan doonaysa inaad uga dirto adigoo soo koobay shacbiga somaliland anigoo xambalyeynaya munaasabada 18 May runtii ku xambalyeynaya aan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr ilaahay idinkiisa waxaan leeyahay dalka inaga leh inaan wanaagiisa ka shaqeyno oo qof waliba wanaagiisa ka shaqeeyo oo si degan wax la isugu sheego oo la isu dulqaato khilaafaadka meel walba waa ka jira qoys iyo ayaa aabiyo hooyo wada dhaleen oo wada laaba khilaafaadka soo dhex mari karaa ninkii gabeeyay wuxuu yiri shil weeye inaad kuftay haddaad ka cooyda ceeba marka inaan khilaafaadkeena si degan oo sidii Soomaaliland soo caanaashay aynu ku dhamaysano wanaag iyo wada hadalna aynu mar walba ka wada shaqeyno indhaha dhexdeena iyo khilaafaadka dhexdeena aynu ku eegayna cadawga inaga sarreeya ee dalkeena duulimaadka ku ah oo midnimada iyo wada jirka iyo walaalnimada iyo wax soo aasheen aan ka wada shaqeyno ma shacabka Soomaaliland u baaqaya guud iyo dibadda waayahay aad baad umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa suldaanka guud ee markaasi beelaha habar awal suldaan maxamed suldaan axmed suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye oo markaasi ka mid ah suldaamada ugu fiican weyn ee beelaha habar awal oo markaasi nagu soo boqday studio-ga koowaad ee telefishinka caalamiga ee Halaxsi TV oo markaasi magaalada Nairobi aan wareysi ka qaadanay suldaanka aad ayaan ugu mahadcelinaa waqtigiisa qaaliga suldaan waan ku mahadcelinaa marka koowaad marka labaadba aad iyo aad baan ku leenahay soo dhawo waayahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabanayaa barnaamijkii intaan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale waanigeena macaan Cabdullaahi Qoorgaaba iyo sidoo kale shaqaalaha telefishinka oo inala maalin wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiinba daawadayaal soo dhawaada halkani waa Halaxsi TV waxaan doonaa daawadayaal inaan halkan idinka soo gudbino barnaamijka aan doonayno inaan markaasi aan maanta ku wareysano suldaanka guud ee markaasi beelaha habar awal markaasi suldaan markaasi oo lagu magacaabo markaasi suldaan maxamed suldaan axmed suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye oo markaasi ka mid ah suldaamada beelaha habar awal ayaa maanta waxa uu nagu soo boqday studio-ga koowaad ee telefishinka caalamiga ah ee markaasi Halaxsi TV suldaan markii ugu horeysay ku soo dhawaad TV-ga bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin nimcaan iyo hawladanada kale ee Halaxsi TV-ga wadoohay una islaamaya waayahay suldaan aad baan u mahadsantahay suldaan waxaad ka timi wadankii magaalada Nairobi ayaa markaasi aad halkan ku soo gaadhay bal waxaad nooga warantaa munaasabadii 18 May adigoo markaasi munaasabadaasi ugu horreyn aad ka hor dhacayn safarkaagii Nairobi iyo kulankaagii ugu horeeyay cid aad la kulantay aad baad mahadsantahay nimcaan su'aal fiican weeye runtii ujeedada safarka halkan aan u imi anigoo dalkii ka imi muddo laga joogo 10 maalmood waxay ahayd hawl dhaqan oo kamid ah hawlaha dhaqan ee aan u xil saaranahay haddii aan nahay mas'uuliyiinta dhaqanka si wanaagsan bay filahay alxamdu hawshaasi iigu suura gashay iigu soo gabagabowday waxaan isarnay dad fara badan oo madaxda dhaqanka qaybaha kala gedisan ee beelaha Soomaalida ah khaasatan madaxda dhaqanka beelaha direed intooda badan waa isarnay martiqaadana waa ay fidiyeen waxa kale oo isarnay madaxda dhaqanka guud ahaan beelaha Irir Soomaaliya inta halkan ku sugan iyagana waa isarnay waxa kale oo isarnay jaaliyadda reer Somaliland ee halkan ku sugan iyaguna intooda badan iyagana waa isarnay wayeelka iyo waxgaradka balmaadooyinka dhammaan qaybaha bulshada iyagana waa arkay ummad kale oo Soomaaliyeedna iyagana waa isarnay dadka KNFD ama Kenya gobolkan la yiraahdo ee Soomaalida wax la leh intooda badan iyagana waa isarnay waxaan uga mahadcelinayaa soo dhaweyntii iyo qaablaadii iyo asmada fara badan oo sameeyeen anoo fursadan ka faa'iideysanaya dhammaantood waa u mahadcelinayaa si wanaagsan oo muhiim maysan ayaan xaaladii dalka uga warramay iyaguna warbixino fara badan oo dalka ku saabsan bay siiyeen kainaas uu qoobna sabkay waayahay suldaan waad mahadsan tahay suldaan waxaad nooga warbixisaa isla markaasina bal aad dul istaagtaa xaaladda guud ee wadankii
maadaama wadankii aad ka timi isla markaasina adigoo markaasi soo koobaya bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee wadankii uu ku sugan yahay. xaaladda guud ee dalka ku sugan yahay kolley inkastoo in badan warbaahinta kala socotaan haddana kolley qofka uu ka dambeeyey ama nin weyn oo dee dhaqan oo meeshii ka yimi kolley waxbaa laga weydiinayaa. markaa dalkii aad iyo aad runtii wanaagsan yahay, roobkiina waa ka da-ay oo gugii si aan berihii hore loo heli jirin ee ilaahay raxmadiisa uu u wada gaadhsiiyey oo wadankao dhan waa barwaaqo. hadday noqoto bari gobolada bariga, kuwa galbeedka iyo inta dhaxaba iyo guud ahaan gobolada inaga sii sheegay reserve area ama Somali state aynu naqaano ama ogaadeenay baan idhaahdo dhulka dhan waa barwaaqo weeye. keliya taa inta colaada gobolkaasi Laascaanood magaaladaasi Laascaanood aan gobolka oo dhan colaadaasi oo quraata wax dhiba oo taagan oo aan ogahay in dalka ka yimid jirta taasina Somaliland maraaxil ka adag oo ka soo baxday taladeedii iyo tacabkeedii iyo tamarteediina way leedahay. waana wada hadalay dadaal fara badanna waa ay socdaan marka laga yimaado constitution-ka dalka ama qaanuunka dalka oo cadeynaya bedka iyo beri haday tahay bad haday tahayba xuduudkeena dhuleed cadeynaya. intaa marka laga yimaado aan dood iyo geli karin oo cidda taasi lagala xaajoon karin wixii intaa ka sokeeyay ummadda reer Somaliland dadka reer Somaliland ee la qalday wada hadal iyo waan baan horna ugu baaqnay markana waa ku baaqaynaa biidhnillaahi tacaala waxaan ku rajoonaynaa in arrintaasi ay dhammaan doonto nabadii ay soo noqon doonto. waayahay waad mahadsantahay Suldaan. Suldaan sidoo kale waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo bal waxaad ka warantaa maadaama aad wadankan aad ku sugnay isla markaasina aad ka mid ahayd suldaamadii ka qayb qaatay munaasabadda 18 May. bal waxaad nooga warantaa munaasabadii 18 May ee sanadkan ee Nairobi bal adigoo markaasi diiradda saaraya sidee bay u dhacday? runtii waa su'aal wanaagsan weeye. munaasabadda 18 May raggii odayaashii lagu marti qaaday baan ka mid ahaa. waxaa kasoo qayb galay ummad aad iyo aad u tiro badan oo ummadda reer Somaliland jaaliyadda halkan degan hadday Nairobi tahay caasimadda iyo hadday gobolada dalka tahayba dhammaantood way kasoo qayb galeen. ummadii hore ee reer Kenya ahayd iyaguna reer Somaliland original kasoo jeeday iyaguna waa ay kasoo qayb galeen. waxa kale oo kasoo qayb galay iyaguna ummad aad iyo aad u tiro badan oo Soomaaliyeed oo xorriyadda iyo nidaamka dimuqraadi multi-party systemka Somaliland ka hana qaaday iyagoo istaag runtii aan oran karo farxadda way nala wadaageen oo inagu taageersaneen oo kasoo qayb galeen. waxa kale oo iyaguna kasoo qayb galay dowladda Kenya mas'uuliyiin aad iyo aad u tiro badan baarlamaanka haddii ha ahaadaan mas'uuliyiin kale ha ahaadaan oo runtii qaybaha bulshada oo dhan ka tirsan baa iyaguna farxaddaasi inala wadaagay. safiirka isfiir ku-xigeenka Barwani iyo Shamaarke oo door mug iyo miisaan leh iyaguna ka qaatay xafladaasi ayaan iyagana si aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa. markaan soo ururiyo waxay xaflad aad iyo aad runtii u qurux badan u qiimo badan jaaliyadaha reer Somaliland ee dalka dibadiisa shanta qaaradood ee dunida ka wada dabaaldegay. wax badan ma ka daawaday in badan baan ka daawaday waxaan oran karaa xafladihii ugu quruxda badnayd ee tan aynu Nairobi maanta ku qabanay ee kamid ahayd wax kale kasoo qayb galay xildhibaano reer Somaliland 3 xildhibaan oo baarlamaanka iyo 3 xildhibaan oo dowladaha hoose iyaguna nagala soo qayb galeen oo jaamaca isaguna akademiyada ka socday isaguna ka soo qayb galay. ummad badan baa runtii ka soo qayb gashay xaflad aad iyo aad runtii u qurux badan oo ahayd farxaddaasna ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkiisa inaynu ku gaadhno iyo sanawaadka kale soo socda inaynu dabaaldegno Somaliland oo xora oo international community-na member ka noqotay oo African Union kursi ku yeelatay oo Arab League kursi ku yeelatay oo United Nations kursi ku yeelatay oo dal qurux badan intii tamanaa noo dhameystiranto in ilaahay ka baryayaa xaflad qurux badan oo ahayd. waayahay Suldaan waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aal ku saabsan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ka Suldaan ahaan door muhiim ah intee ayaa ka qaatay? runtii marka dhaqanka haddii aanu nahay door fara badan baanu ka qaadanay. aynaba waad ogeydeen wax laga yaabaa in warbaahinta kala socoteen oo markii ugu horreysay dagaalku waa uu socday waxaan 2 wiil ka badnaay madax dhaqameeda oo nuxulay oo xukuumadda iyo dhaqanka waa isku raacnay baa loo diray. ergey ahaayeen waxay fadhiyeen 15 cisho ilaa 20 cisho aan oran karaa. dhinaca kale ee garaadada ayaan arrintaasi ka suura gelin way soo noqdeen Hargeysa ku soo noqdeen. haddana intaa dadaal uma habeen iyo maalinba aniga ka fadhiyaa waxa dhaqanka qaybahooda kala gedisan oo dhan intaa habeen iyo maalin baanu telefoonno aanu ku daba soconaa. welina arrintaasi waa ay taagan tahay madax dhaqameed kale oo reer Soomaaliya oo koonfurta ka yimi Soomaaliya ee iyaguna imkaan Hargeysa ka yimi iyaguna ku sugan oo arrintaa iyaguna nagala shaqeynayay. marka habeen iyo dharaarba isla xabayna naas bay madaxda dhaqanka u taagan tahay imikana waa u taagannahay waana ka shaqeynaa. waay adigoo markaasi diiradda eegaya isla markaasina maadaama tahay Suldaankii guud ee beeraha Habarwal waxaad u soo jeedinaysaa garaadada beesha dhulbaante inkastoo hore ay ugu baaqeen dagaal nabadiina ay diideen?
والله وانا سيدر ويا تاسهر دعده وارنتا لكن إما كان waxaan leeyahay caanadaatay dabadooda qabay danta umada reer Soomaaliland waxay ku jirtaa inaanu dalkan kala go'aynin oo gobol kamid ah aanu maanta gaar u bixi karin salahan maanta waxaan joognaa Nairobi oo joognaa caasimadda dalka Kenya Mandera umad Soomaaliyeed baa degan waxay wax la leeyihiin dalkan Kenya suuragal ma aha maanta inay tiraahdo Mandera waxa raacaya Soomaaliya oo xuduud baa jira international oo Afrika oo dhan ku kala socoto marka wixii aan suura galin aanu umada lagu layn laguna lugweynin laguna maaweelin baa wanaagsan waxaan ugu baaqayaa wax aliyaalo wixii qarannimada aan dhaawacayna intaasi ka sokeeyo walaalaheed waxaynu ugu baaqaynaa inay nabadaasi naga qayb qaataan in danta umada reer Soomaaliland ay ku jirto wada hadal iyo isu tanaasub iyo isu aqal celin in miiska hadalka aynu isugu nimaadno inta aan reer Soomaaliland ahayna xuduudaha kala ka soo talaabayna waxaan leeyahay anagu idinmaanaan soo talawnaa haddii khilaaf dhexdiina ka jirana dab gaas kuwaanaan sii dareen inaanu isu kiijidno inaanu banaanka ka joogno kamay dhaxaysan idin faraha kala baxayaan leeyahay garaadadana nabad baan imikana ugu baaqayaa horna waa ugu baaqnay goor walbana waa ku baaqaynaa in miiska wada hadalka la isugu yimaado nabad la qaato waayahay fariintaada ugu dambaysa aad rabtay halkan aad uga dirto shacabka reer Laascaanood muxuu yahay wallahi shacabka reer Laascaanood runtii dee barakac baa ku yimi waxaanay ahayd dee arrin masiidareed looga wada tiiraayoodo waxaan leeyahay in nabadaasi oo laga wada shaqeeyo oo dalka la aamino oo Soomaaliland baa dalkan iskale cid maanta ku xadgudbaysaana ma jirto awoodaha dalkuna way qaybsan yihiin oo way ogtihiin oo munaasibta dee ugu sarreysa dalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka laga tago ninka barnaamijka saddexaad ee dalka leh waa ra'iisul baarlamaanka dalka weeye yani waxa weeye in dalkii la wada leeyahay taasi ka turjumaysa madaxweynahana wax ka maanacaya ma jirto berri ka maalin marka ay qof iyo cod noqoto dadka reer Laascaanood gacantooda ku jirta cid ay dooranayaan iyo cid matalaysa ay u codayn doonaan marka waxaan leeyahay nabadda reer Soomaaliland baa tiin meel kale oo maanta ah u bixi kartaan ma jirto qaanuun iyo shuruuc caalami ah jirto idina aan ka talaabsan karin oo qof wuxuu jecel yahay suura galaynin marka waxaan leeyahay wada hadal iyo walaalnimo ayuu baan ugu baaqayaa iyo in dalku dib soo laabtaan waayahay aad baan u mahadsantahay sultaan intii gabagabadii barnaamijkeena aadaaba sultaan tahay bulsho fara badan aad matasho guud ahaan shacbiga Soomaaliland farinta kooban aad halkan doonaysid inaad uga dirto adigoo soo koobay shacbiga Soomaaliland aniga waxaan maleeyahay in 16 May runtii ku xamaleeynaya aan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ilaahay idinkiisa waxaan leeyahay dalka inaga leh in wanaagiisa ka shaqeyno oo qof waliba wanaagiisa ka shaqeeyo oo si degan wax la isugu sheego oo la isu dul qaato khilaafaadka meel walba waa ka jira qoys iyo ayaa haabiyo hooyo wada dhaleen oo wada laaba khilaafaad soo dhaxmari kara inkii gabiyo wuxuu yiri shil weeye inaad qoftaay hadda ka weyda ceeb marka inuu khilaafaadkeena si degan oo si Soomaaliland soo caanamashay aynu ku dhameysano wanaag iyo wada hadalna aynu mar walba ka wada shaqeyno indhaha dhexdeena iyo khilaafaadka dhexdeena aynu ku eegayna cadawga inaga sareeyay dalkeena duulimaadka ku ah oo midnimada iyo wada jirka iyo walaalnimada iyo wax soo aashayna ka wada shaqeyno ma shacabka Soomaaliland u baaqaya guud iyo dibadda waayahay aad baan u mahadsan tahay kaas waxa ahaa suldaanka guud ee markaasi beelaha Habar Awal Suldaan Maxamed Suldaan Axmed Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye oo markaasi kamid ah suldaamada ugu fiican weyle beelaha Habar Awal oo markaasi nagu soo boqday studio-ga koobaad ee telefishinka caalamiga ee Halaxsi TV oo markaasi magaalada Nairobi aan wareysi ka qaadanay suldaanka aad ayaan ugu mahadcelinaa waqtigiisa qaarka suldaan waan ku mahadcelinaa marka koobaad marka labaadba aad iyo aad baan ku leenahay soo dhaw waayahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabanayaa barnaamijkii inta ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale waa anigeena macaan Cabdullaahi Qoorgaaba iyo sidoo kale shaqaalaha telefishinka oo inala maalin wanaagsan